Maalin maalmaha ka mid ah Thomas Edison ayaa waxa uu yimid guriga, waxa uuna warqad u dhiibay hooyadiis, kuna wargeliyay in warqadda uu u soo dhiibay macallinkiisa, uuna ku soo amray cid aan hooyadii ahayn inuusan u dhiibin warqadda. Thomas hooyadiis waxaa indhaheeda buuxiyay ilmo, kadib markii ay akhriday sadaradii laga qoray wiilkeeda. Kadib, wiilkii ayaa weydiiyay hooyadiis waxa ku qoran warqadda. Hooyadii ayaa wiilkii yaraa u sheegtay in warqadda ay ku qoran tahay: "Wiilkaaga waa mid aad u caqli badan, iskuulkeenana aad buu u yar yahay, mana heli karno macallin aad u fiican oo wax bari kara wiilkaaga. Sidaa darteed, fadlan adigaba wax bar." Sanado badan kadib, Edison hooyadii way geeriyootay. Waxa uu noqday mid ka mid ah hindisayaasha ugu wanaagsan dalkiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, Edison waxa uu furay sanduuq ay hooyadii ka geeriyootay, waxa uuna ka dhex helay warqad uu beri macallinkii u soo dhiibay hooyadiis oo duuduuban. Wuu furay warqaddii, fariinta ku qornaydna waxa ay ahayd sida tan: "Wiilkaaga maskaxda ayuu ka xanuunsan yahay, kumana hayn karno iskuulka, marka waan soo erinay." Edison oo si dareen leh u akhriyay warqadda, kadib waxa uu qoray xusuus qorkiisii oo ugu magac daray Thomas Alva Edison. Waxa uu ahaa canug maskaxda ka xanuunsan, balse ay hooyadii ka dhigtay midka ugu caqliga badan dalka. Dulucda sheekada waxa ay tahay daawade: jacaylka hooyada iyo barbaarinteeda waxa uu bedeli karaa awoodda ilmaha.